shirkani oo ka dhacay hoolka shirarka caalamiga lagu qabto ee loo yaqaano CTICC ayaa galay maalintii labaad waxaana looga hadlayay kobcinta dhaqaalaha adduunka gaar ahaan qaaradda Afrika. waxaana shirkaasi ka soo qayb galay madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma, wasiirro ka socda qaaradda Afrika, shirkado caalami ah kuwaasi oo sheegay inay maalgashi ku sameynayaan wadamada qaaradda Afrika. shirkadda Mastercard ayaa ka mid ahayd shirkadihii ka hadlay halkaasi, waxa ayna sheegtay shirkadaasi in ay maalgashi ballaaran ku sameyn doonto dalkeena Soomaaliya. wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte oo ka mid ahaa wasiiradii ka qayb galay shirka ayaa TV-ga Universal uga warbixiyay muhiimadda shirkaasi uu u lahaa dalka Soomaaliya. walaal shirka waxa ugu muhiimsanaa shirkan waa shirka waxa la yiraahdaa madasha horumarinta dhaqaalaha adduunka. waxa si gaar ah shirkan uu xoog u saaray dhaqaalaha Afrika. madaxda dalalka Afrika intooda badan ama heer madaxweyne ama heer wasiir ha ahaadaan waa isu yimaadeen. mawduucuna runtii wuxuu ahaa sidee dhaqaalaha Afrika loo horumarin karaa, maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan iyo fursadaha uu haysto. waxaa kaloo joogay shirkadaha ugu waaweyn dunida oo iyaguna dabcan soo doontay in ay sahamiyaan meelaha Afrika kamid ah ee ay maalgashi ku samaysan karaan. annaga waxaa naga khuseeyay si gaar ah shirkan oo runtii farxad noo ahaa in mid kamid ah shirkadaha adduunka ugu waaweyn oo la yiraahdo Mastercard oo bixisa kaararka credit cardka loo yaqaan ama wax lagu iibsado, in ay kaga dhawaaqday madasha shirka in ay maalgashi ku sameysay Soomaaliya oo ay la shirkowday bangi ku yaala Soomaaliya oo iyadii bangigaas ay markii ugu horeysay bilaabeen inay bixiyaan kaarar wata astaanta Mastercard si dadka Soomaaliyeed ee hantiilayaasha ah ee wax haysta ay wax ugu iibsan karaan, isla markaasna ay galaangal ugu yeelan karaan suuqyada adduunka. dad badan oo Soomaaliyeed oo hadda wax haysta ma awoodaan in ay wax ka iibsadaan suuqyada adduunka, mararka qaarkood ma awoodaan inay socdaal sameeyaan. maaragtay talaabada hadda ay Mastercard qaaday waxay u fududeynaysaa iyaga iyo bankiga ay shirkada yihiin ee Premier Bank in markaas arintaas ay wax weyn ay ka bedesho. laakiin mid taa ka sii muhiimsan waxay tahay markii shirkad Mastercard oo kale ah ay ku dhawaaqday inay Soomaaliya maalgashi ku sameysanayso, waxay dhiirigelinaysaa shirkadaha kale ee adduunka ee halkan isugu yimid ee u yimid in ay sahansadaan meel ay maalgashan karaan. haddana waxay arki karaan in Soomaaliya ay tahay meel aan laga baqin, soo gaartay xilligii runtii maalgashi lagu sameysan kari lahaa. Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal, magaalada